goordhow laga helay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan in guud ahaanba la kansalay ama la joojiyay showgii bandhig faneedka oo ay qaban lahayd fanaanada caanka ah ee reer Hargeysa Habboon Nuura. War qoraal ah oo ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa lagu sheegay in guud ahaanba showgaasi ama bandhig faneedkaasi aan la qaban karin kadib markii gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex uu sheegay in diinta Islaamka aysan qabin in waqti dambe meel la isugu yimaado oo halkaasi heese waxyaabo kale la soo bandhigo. Qoraalku wuxuu cuskuday sidoo kale gudoomiyaha waxa uu ku sheegay in guud ahaanba arrinka markay ogaadeen in qaab ahaanba ay ka hor imaan karto shareecada iyo diinta Islaamka sidaas lagu joojiyay. Habboon Nuura fanaanada caanka ah ee reer Hargeysa ayaa iyadu loo qorsheynayay in magaalada Hargeysa ay ku qabato showgii ugu weynaa iyadoo qiimaha xilligaasina laga dhigay $30 oo lacagta Mareykanka ah. Dad badan ayaa isku diyaarinayay inay ka qayb galaan showga Habboon Nuura oo ah fanaanad da'yar isla markaana iyadu haysato taageerayaal aad u badan. Labadii toddobaad ee u dambeysay waxaa soconaya dhaqdhaqaaqyada iyo diyaar garowga marka la eego oo loogu jiro sidii Habboon Nuura show aad u kala kacsan ama dadku sida ay dhahaan bashidan loogu qaban doono magaalada Hargeysa kadib markii Muqdisho safar ay ku timid guud ahaanba laga joojiyay in bandhig faneed ay qabsato. Sababtuna waxay ka mid ahayd fanaaniintii reer Hargeysa ee soo qaaday heestii Itoobiyaanka Muqdisho loogu xigsanayay. Dhalinyarada reer Muqdisho ayaa xilligaas waxay sameeyeen kacdoon aad u ballaaran waxayna sababtay in guud ahaanba Habboon Nuura ay ku laabato magaalada Hargeysa oo iyadu markii horeba ay ka timid. dhalinyaro caanka ah baraha bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyiin ayaa iyagu ku soo dhaweeyay markii Hargeysa ay tagtay Habboon Nuura waxaana xilligaasi loo ballan qaaday in showgii Muqdisho kaga baaqday Hargeysa loogu qaban doono. Balse mar kale Habboon Nuura waxay xilligan wajahaysaa niyad jab iyo sidoo kale culeysyo kaga imaanaya dhinaca Somaliland. Markii hore Somaliland ayaa iyadu waxa ay doorbidaysay in showgeedii ugu weynaa halkaasi laga qabto isla markaana mas'uuliyiinta kala duwan iyo dadka iyagu si wadajir ay kaga qayb qaataan. Balse qoraalka ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex markii lagu baahiyay baraha bulshada sidoo kale telefishinka Somaliland waxaa soo baxay warar kala duwan oo sheegaya in Habboon Nuura rajadii ay ka lahayd Somaliland meesha ay ka sii baxayso. Waxay u aanooday waxa ay ahayd Habboon Nuura heestii Itoobiyaanka lagula saftay ee looga soo horjeestay koonfurta Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. Waxay filaysay markay ku laabato magaalada Hargeysa in soo dhaweyn intaa ka badan iyadu ay hesho isla markaana qadarin ay ka hesho dadkii iyadu ay u aanooday. Balse ma aysan dhicin oo Habboon Nuura iyadu guud ahaanba waxaa laga kansalay showgeeda haddana waxaa la soo warinayaa in xaaladdu meel cakiran ay marayso. Siyaasiyiinta Somaliland ayaa iyagu laftirkooda hadda ku kala qaybsamay joojinta bandhig faneedkii Habboon Nuura ay qaban lahayd maadaama qaarkood ay sheegeen gabadha maadaama Muqdisho showgeeda lagu qaban isla markaana ay kasoo tagtay in Hargeysa loogu qabto halka maamulka gobolka Maroodi Jeex iyaguna ay qorsheynayaan in guud ahaanba la joojiyo ama la hakiyo showgii Habboon Nuura marka la eego. Habboon Nuura warar hoose aanu helin waxa ay sheegayaan marba haddii culays ay kala kulantay Somaliland in ay ku soo laaban karto magaalada Muqdisho maadaama saygeeda uu yahay nin reer Muqdisho ah waxaana suuragal noqon kara Habboon Nuura in iyadu ay bixiso raali gelin Muqdisho ay ku soo laabato halkaana ay ku noolaato waa sida xogaha hoose aanu helino. Balse waxaanu arki doonaa saacadaha soo aadan waxa ka soo baxa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee Somaliland maadaama hadda go'aanka kaliya uu ka soo baxay gudoomiyaha gobolka Maroodi Jeex oo uu si cad u sheegay in wax bandhig faneed aan la qaban karin. Sababta lama oga uu bandhig faneedkaasi u joojiyay inkastoo dhinaca diinta uu cuskuday balse waxaa jiri kara arrimo siyaasadeed oo Habboon Nuura arrinka looga joojiyay sida xogaha lagu helay wixii ku soo kordha kuwa soo adaneed saaxiibayaal ku daawan doontaan.